saafi ah ما شاء الله waxaa waaye tiimkii oo guul iyo قول gobonimo gobonimo insha Allah waxaan naga helaysiin wax kasta oo wanaagsan وفي عن ilaahay idinkiisa Insha insha Allah. Allah biin illaahi kariim cawada waxaan waraysi aan la yeelanaa walaalahayga ما شاء الله garabkayga labadeeda garbood maasha Allah Faadimo Warsan iyo Fardowso ما شاء الله تبارك الله program cusub aan wataa insha Allah burburay wuxuu ku burburay iyo single mother magaca single mother maxaa haweenka kale loogu bixiyay iyo gabadha single mother ka ah maxay kala kulantaa dhibaato ah markii la furo ما شاء الله maasha Allah Faadimo ku soo dhawoon kulay walaashay ما شاء الله تبارك الله ودين سلامي دمانتين ودون هاي واني ورسن شيخ جنل كداواني سنة وجنل كعاشة لذن ما شاء الله تبارك الله دمانتي ودين سلامي يا صحاب تقرح دبضن إيه هلكا كجرتو ما أنت سؤال علس بانو لديبي لكن وحي إلهي نجا جرنسيو بانو ليه الدونا إن شاء الله بإذن الله الرحمن إن سينجل مادر إيوه فاميلا دا بربري فاميلada burburay caqabado badan baa runtii mar walbaba hortimaado oo hortaagan magaca single mother ee haweenka loo bixiyo ee haweenka loogu yeero dabcan waxaan u malaynayaa wadamadan gaaladan joogno single fatherna way dhahaan oo xagga aabihina waa lagu leexiyaa laakiin magaca si fiican inta badan naaday oo adduunku qabsaday waa single motherka maxay la kulmaan marka gabdhaha caqabad ah oo single motherka ah maxaa dhibaato ah oo ay kala kulmaan magacaas muxuu culeys soo wataa magacaas annagu markaan waddankeena joognay gabadhu waa la furay oo waa garoob baa maqli jiray haddii gabadhaa la furo in badan ninka wuxuu raadiyaa wixii lagu furay oo dhibaato ah wuxuu baadi goobaa waxay gabadhaas geysatay laakiin isagu ma baadi goobo gabadha ninkii furay muxuu dhibaato geystay ma baadi goobo laakiin wuxuu baadi gooba oo uu raadiyaa gabadhan maxaa lagu furay ciladu maxay ahayd asagoo in badan isku dhabar jabinaya taas oo raba inuu ka salgaaro ayaa waxaa laga yaabaa inuu gabadhi madax isugu tuuro uu iska guursado isagoon wixii ogaanin asbaabtii gabadha lagu furay ama ciladii lagu furay waxaa laga yaabaa haddana isla asagii inuu cilad lamid ah uu gabadhii kala kulmo markaasuu wuxuu dhahaa wixii lagu furay qabtaa kaas magacii baa u naaday magacii baa raacay haddana waxaa loo raacsiinayaa wixii lagu furay ayay qabtaa waa dhib intiisa la-eg waa waxyaalaha yacnaha gabdhaha niyaddana kasii jabiyo aanan gabdhaha aysan u damcin inay nin dambe ama nin labaad ama nin saddexaad aysan sii guursanin oy hankoodii halkaa ku ekeeyaan oy han jabaan laakiin waxaan leeyahay in badan in uu qofka bini-aadanka ah qaladku isagu geysan keligii inaad raadisaa macquul ah ninka raggu markuu gabadha guursanayona yuu ku ciladaynin wixii lagu furay qabtaa ha raadiyo ninkii soo furay gabadhan bal cilada uu isaga lahaa baar oo soo raadi adoonan gabadha waxay lada saarin taasaan leeyahay gabdhahana waxaan leeyahay waxaad ogaataa haddii gabadhaas caruur lagu furay in caruurtu ay tahay wax walbo oo noloshaada ku xiran inay caruurtaada ku xiran yihiin farxadaada caloosha waxay ku xiran tahay caruurtaas noloshaadana waxay ku xiran tahay caruurtaas waxaanad u nooshahay allaha raxmaanka adartii iyo inaad nolosha caruurtaada ogaatid ogow korso si wanaagsanna u hayso wixii ilaahay calaf kuugu dara ee dambana gacmo furan ku soo dhaweey adiga oo ka fiirsanayo kuna darayo fiidhoonaan in badan ah iyo ka fiirsasho aanan wax degdeg ah kugu jirin kan kuu qalma raac kan kuu qalmina ka tag kan hadalka jilicsan ee macaan raac kan hadalka xun ee hadalka adag ee dumarka caayana ka tag waxaan leeyahay salaamullaahi calaykum walaashay Firdowso gabadha habarta waahay soo dhow maasha allah ana horta maasha allah fikirkaaga aad baan kugu raacsanahay maasha allah horta gabdhaha single motherka dhib badan bay qabaan cilad kasteeda dusha laga saaraa waxa uu sii dheer nin kasta oo guursanaya uu ku danaystaa oo wuxuu yiraahdaa caruurta caanaha la cab ama awal wallahi beenta dadka hadda soo baxay caruurtan caanaha la cabo ama awalba single mother baad ahayd
yacni waxyaabo lagu bahdilayo oo badan baa jira oo dad wiilashan dhalinyarteena soomaalida anigu horta ma ogi raggu caayimayna anagu waxu yihiin dhihi mayno laakiin waxaan leenahay laakiin caqabadaha la kulma ayaan ka sheekaynaynaa maanta hooyada caruurta reality-gan ka hadlaynaa iska soo dhibaatootay ee reerkeedii kasoo burburay ee haddana balastiri inaad nasatid oo ilaahay nafsi bax ku siiyo caqabadaha ay la kulmaan waxa kamid ah inuu ninka yidhaahdo ilmahan caanaha la cabayaa inuu yidhaahdo awalba single mother baan guursaday waxaa laga yaabaa gabadh inay gabadh yar ahayd oo awlaad kalena sii dhalayso oo ilaahay boogiya kuwana ay yaraan ku dhashay haddana waxaa la leeyahay islaan single mother abaan guursaday nin kastaana waxaa laga yaaba badanka inayna mustaqbal u guursan ku meel gaar ay u guursadaan marka caqabado badan bay gabdhaha la kulmaan ani ra'yi ahaantayda waxaan dhihi lahaa gabdhaha horta kula talin lahaa ka fiirsada before intaa guursan ka fiirsada guurku waa waxyaabaha damageka ku gaarsiin kara waxyaabaha ku farxad gelin kara weeyaan waa future-kaaga ka fiirso qofkan aad nolol rabtid inaad la wadaagtid kolka horena reerkaaga ciyaar iskaga dumin waxaa laga yaaba gabar yar adiga ah oo wax 12 jir ah ninkii ku guursaday ee ilmaha isku soo dhasheen adigoo 22 kala tagtaan haada 22 oo yaraantaadii ku ogaa reerkaagii aad kibir uga tagtid kibirkaasi nafsi buu kugu noqonayaa waxaa laga yaabaa ninkan aad hadhow aad u tagtid inuu kaaga dilo maskaxda single mother baad ahayd naag weyn baad ahayd gabar yar baan heli lahaa inaad maskaxdii dhanba aad ka dilantid baa laga yaabaa ninkaaga horena ood weli aad usii yarayd reerkiina ha ku ciyaareen oo nafsi ha gelina laakiin hadday idinku xumaato xaaladdu maxaa layidhi silix ku nool 30 guursataa dhaanta ka dambeed u tegaysaana iska ilaaliya oo ha ku degdegina midda kale mid baan usii raacinayaa gabdhow waxa idiin fiican nin haddaad guursanaysid nin wax yar kaa weyn ninkaaya iska ilaaliya mas-uul noqda kala go-een oo qof mas-uuliyad ku dhaamo adiga ku dejin karo laakiin wax kaa yar haddaad guursatid dadkeenu dhaqan waxaan leenahay sugaada dhaqan waxaan leenahay naa kaa weyn baa ayaad in gabadhi la caayo oo gabadhi niyadda laga dilo iyadoo awalba soo rafaada waxaa laga yaabaa inay meel daba ka timid dab kale usii biiro iska ilaaliya oo meeshaad gelaysaan iska ilaaliya oo ilmihiina u tura oo ani waxaaban dhihi lahaaba isku filaada oo ninbaa guursanina laakiin calafku wallahi bilaa markaad aragtid waxaad arkaysaa gabar yar oo 3 ciyaala 2 ciyaala wadata ninbaa guursan waxa laga yaabaa ninkaas inuuna weli soo guursan laakiin iyada in badan ka weyn yahay wuxuu leeyahay islaan single mother abaan guursaday halkuu sharafteedu uga dhacay laan kugu dhaariyay meel dheer buu uga dhacay adigiiba dhulka isdhigtay waa single magaca single mother gabadha reerkiina ku fududaanina marka hore marka dambana meesha aad gelaysaan gabdhow ka taxadara si aad hadhow toole aad idinku aad adkaysi u lahaataan oo wax aad ka fiirsateen maaragtay aad ugu dhaqaaqdaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu caashan wareejiye okay waa runtiin walaalahay maasha Allah ra'yiin aad iyo aad u wanaagsan yahay horta gabadha magaciisa single mother kala dhahayo wax badan oo dhibaato badan ay kala kulantaa haday noqoto bini'aadinka magaalada ku nool haday noqoto nimankii dhamaantood say u dhan yihiin tan kale waxaa haysata gabadha markii la soo furo haday gabar yar tahay iyadoo 17 jir ama 18 jir la soo furay sax way yar tahay ilmo waay waxaa laga yaabaa inay wiilka iyo iyada isku ximaanin waxaa laga yaabaa inay magaciisa family problem inay ku kala tagaan صح oo labadii reer ay heshiin ayadoo gabar fiican ay tahay wiilkii wiil fiican uu yahay ee dhaqmayaan dhaxdooda soo gar family problem ay ku kala tagaan صح markaan sida kalaba waxa fiican labadii qofood haday isqabaan ay dad yar yar ay yihiin familada la baabay inay horta ma fiicno hooyooyinka ku dhex jiro inay ka dhex baxaan صح marka koowaad waa dhacda amar ilaaha dhacay gabadhii calafkeeda ilaahay soo dhameeyay waa kala tageen still gabadhi waa gabar yar صح aadiya aqligeed uma kala go'in صح mar alla ninkii kale ay hami kala haan lahayd ma yeelan karto because already maskaxdeeda waxa ku qufulmayso in la soo xumeeyay in nimanka dhan ay saas yihiin ay u qaadanaysaa markan daas waa waxa gabdhaha dhibaato badan horta ay ula kulmayaan wiilkii gabadha u furay haday hal cunug u dhashay ama laba cunug ay dhashay naag weyn waay markaas ayada naag weyn laga dhigaya صح ma lagu fikiray in gabadhan gabar yaraan ay ku dhashay tahay inay wili ay yartahay labada cunug dan ay u dhashay mahayne wili 20 sano ay gaarsaneen laakiin waxaad arkaysaa marka nin kale oo nin iid ka weyn haduu inay shukaansatay isku daydo
ee dhahayaan magaciisa naag weyn maxaa kuu geeya ama naag garoobe maxaad ka rabtaa صح hadda taasna sheekadaas way cusubta yes waana u badan tahay dadkii ما gabadhi يعلم maxaa ku الله imaanay ودقيا. ha cilada loo gabadhi maxay noqonaysaa way maskaxda ee magaciisa damage ka koraay waa lagu soo furay ilma wadataa magaciisa qof kasta sidii arabti kuma qaabilay aaminsan tahay نعم نعم ha isneejibeenin aan kuleeyahay markasta هراء وقصعه hore uga soco dhegna ha u dhigin wixii gadaasha ka hadlaayo ninka ku rabo adigii ilmaha inuu isku kiin qaato waa صح kan aa ka tagtane sidiis kalaba asagana xaqa ilaahay saaray inuu guto waa نعم nimankeena soomaaliyeed markay gabadha هذا كلا isbaan قبلنا عروري كود شيء عروري كو هيسا إن أوقاتد واجب إن تكور هيسد واجب إن دقالي سد واجب ما أها أيضا واحد دقالي نسد عرورت هذا دقالي سنيسا عرورت هذا وحسي سنيسا عرورت هذا بس برايسا عرورت هذا بس جعلي سينيسا عرورت هذا بس كور هينيسا مسكح هذا إيه عقلك عرورت هذا تكورينيسا ما هنا تقعد محتريسد قبل الرير بس أكر صدي لما تنتهي هذا واحد جورستي وانا تكلتكتين لكن عرورت هذا كورسو هضيعن أنا وأنت صنديه لها هضيعن أنت boqolkiiba sagaashan nimanka soomaaliyeed way u badan yihiin inay gabadha markii la furo ilmihiisi hooyada loo furay ilmaha loo furay niman fiican laakiin niman niman fiican oo magaciis wanaagsan way jiraan ma aha. maya way u badan yihiin laakiin boqolkiiba sagaashan dad gabdho badan oo dhibaatadaas haysato waa jirtaa wayna buuxdaa oo ilmaha lagu daayacay ayadoo lay korinayso ayadoo lay rafaadayso aabihii 20 jir uu yahay oo lacagna haysto hantina haysto waxna ka maqneen oo ilmihii banaanka laga maray niman fiican oo wanaagsan oo magaciisa ilmihiis ka warhayn way jiraan jiraan rag fiicana jiro oo ilaahay ka cabsanayo oo iimaan leh oo carruurtooda haysanayo oo carruurtooda korsanayo oo carruurtooda ka warhaynayo insha allah biidni illaahi alkariim waxaan rajaynaynaa inay raggu noqdaan dhammaantood rag wanaagsan oo carruurtooda ka warhayo maasha allah gabadha ay furaana ka warhayo Adiga. gabadhaasi calafba ilaahaygi raxmaanku ugu dara haddana waa kala tagteen dhib ma laha waxaad isku daydaa inaad gabadhaas wanaajiso adigana gabaray wiilkaas inaad wanaajiso aad kala tagteen ee odagaagii hore ahaa u ha ka ducaysid ceerini ilmaha ilmaha asaga aabahood imaado hana u diidin insha hana u allah diidin ilmihii ilaahay idankiisa waxaan jecelnahay waxaa idin leeyahay walaalahayga dhammaantiin insha allah barnaamijka suuna ugu bilowda waaye hadduu ilaahay idmo waana dhammaystiri doonaa Baarti wankiisi waaye laakiin baarti wankii waa kan insha allah waxaan leeyahay walaalahayga mar kasta digtoonow qaba insha allah niyadan ha iska dilina insha allah biidni illaahi alkariim السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي هاي لو بنا لايك شير كومنت dhammaan idinka xagiina waa anagana soo galowgaan leenahay annagana hadalka yaa يا waa tiin guul iyo gobonimo